بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد maanta waxaan bilaabaynaa kitaabkii aan u ballansanayn shalay waxaan ka soo baxnay muqaddamadiisii maantana kitaabkii baan gelaynaa shalay markaan ka hadlaynay xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam fadliga iyo wanaagga ay leedahay salaadu waxaa ku jiray qofkay salaadiisu hagaagto camalkiisa oo dhan wuu hagaagahaya laba macnaba marka waa jihooyin badan baa xadiisku wuu u shaqaynaya qofka intuu u istaago salaadiisa qowlkeeda iyo ficilkeedaba ku hagaajiya siday uga sugnaatay nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam inaguna soo gaartay camallada kaleeta ee islaamka oo dhanna sidaasuu iyadoo ay fangalaysu u hagaajin karaa dhinacna waa aqbalitaanka dhinacna waa istiطaacada iyo awoodda qofku u yeelanayo inuu hagaajisto salaadu maadaama ay ficilo badan wax la qaban hayo fara badan iyo wax la dhahahayo fara badan iyo wax loo baahan yahay qofku inuu hayo oo gudaha ka hayo ay tahay qofka awooddaas yeesha labadii jihaba wuu u guulaysanhayaa marka ha lagu baraarugsanaado in sha allahu tacaala istiqbaalu lqibla kow sheekhu wuxuu ku bilaabay istiqbaalu lqibla idaa qumta markaad istaagto istiqbaalu lqibla waa inaad u jeedsato qiblada xaggeeda waa adiga oo dhan kulliga inaad qiblada u jeedsataa lagaa rabaa idaa qumta haddaad istaagto ayuha almuslimu qofka muslimka ahow ila salaati salaad haddaad u istaagto fastaqbil ilkacba kacbada u jeedso oo qaabil iyada xaggeeda u jeedso xayثu kunta meel kasta oo tahay fil fardi waajibka markaad tukanayso iyo wannafli markaad sunnaysanayso intaba qiblada u jeedso qof waxaa jira marka juz-un u jeedinaya qiblada waana inagu badan tahay arrintaa iyada ah oo sidee qofku juz ka mida uu qiblada ugu jeedsanayaa innaga oo dhan waxaa layna yidhi qiblada u jeedsada lugihiisii laakiin wuxuu u kala jeedinayaa koonfur iyo bari buu u kala jeedinayaa wuxuuna ku leeyahay aniga lugahaygaa sidaa ahoo lugu qalqalloocnidaan u dhashay qof walbow markaad salaada istaagayso ficilkana waan ku dari doonaaye adoy lugahaagu sidaa u yaallaan salaada ha gelin qibladii maadan u jeedsanin rukniga ahayd qof walbow ku baraarugsanow waa in lugahaagu ay qiblada u jeedsadaan ood sidaa u dhigto sida madaxaaga muxuu ahaa jidhkaaga kale uu qiblada ugu jeedo yaa lugahaaga markaad dhulka dhigaysana ay la rabaa inay qiblada u jeedsadaan laakiin haddaad sidaa u dhigtay qibladii maadan u jeedsanin ogow rukni dhan oo salaadaadii ah baad bannaanka u tuurtay la qumanaansho adiga kula qumanaaday ama caado aad raacday ama dhaqan aad waxaa weeyaan adigu fulinayso salaadda marka waxaa la rabaa inaad u jeediso lugahaaga qiblada waa inaad u jeediso oodan labada dhinac u jeedinin waad u jeeddaan baan u malayn gacmahayga soo ma markaad istaagayso gacmaha lugahaagu waa inay sidaa u aadaan qiblada haddaad sidaa u jeedsato labadaada lugood oo tidhaahdo aniga lugaha iyo qalqallooco oo waxaan u dhashay wegdaan leeyahay waa adiga jeebkaaga qof walba uu ku baraarugsanow arrintaa iyada ah lugahaagu waa inay qiblada u jeedaan oo qofka kaleeto uu awood u yeesho inuu asaguna dhinaca ku soo saaro markaad sidaa tidhaahdo qofkii kale xaggee kaaga aadahayaa meel uu qofkii kale kaala soo xidhiidhayaba ma jirto wey marka waa in qiblada aan si guud u qaabilo wey wa huwa istiqbaalka qiblada loo jeedsadana sheekhu wuxuu ku yidhi ruknun waa tiir oo min arkaani salaati salaada tiirasheeda ka mid a allatii tiirashaasoo laa tasixu salaaddii aynan asaxaynin ilaa bihaa asaga mooye waa rukni istiqbaalku marka wuxuu dhacayaa salaada banaankeeda soo ma
shardi iyo rukni way isdhexgeli karaan soo ma shardi kasta rukni wuu noqon karaa waxaan rukni kasta shardi wuu noqon karaa laakiin shardi kasta rukni ma noqon karo soo ma marka qiblada u jeedso sunno iyo waajibba waa inaad qiblada u jeedsato adiga oo dhan ويسقط ودعها الاستقبال استقبالك قبلة إن تشوكتيسها ودعها على عن المحارب قفك الدجال ككتيرة في صلاة الخوف صلاة الخوف كقفك استقبل تكنا الدجال كتيرة دجال لما يا استقبالك قبلة ويكد عيسى لماذا Soomaali qumareed mahmahayaha ileedahay meesha uu ku fiican tahay kamitahayo salaado kolba siday ku qabato baa loo tukadaa Soomaali istiqbaalki rukniga aha ويسقط الاستقبال استقبالك rukniga aha wuu dhacaya oo yu ka dhacaya عن المحارب قفك dagaalamaya في صلاة الخوف markuu صلاة الخوف ka tukanayo ayuu ka dhacaya يا والقتال الشديد وأسيقون اللي سيتاكد يا خوف صلاة الخوف كي دقالك عدك كل بس دا ذكرتاد أنتو كريسة أما فرس صارو أما قاري فيتشي أما وحاوي يقلقلي ميسو وحاوي يسيدا ذو أودو أي يا ذو مارتي يا ذو تكنيسة قفك صدح هذا كدا عيسى أسيقون وحاوي وعن العاجز عنه كالمريض صلاة دي باكو قبطي سبيتال بات شيفتا سرير بات lagugu seexiyay ma awoodid inaad iska diso ma awoodid inaad qibladii u jeedsato salaadiina way ku soo gaartay saacadii waad haysataa maxaad samaynay ma inta qiblada lagaaga jeedinayaa tugi maya aajiska asagana qiblada inuu u jeedsado kari waayay fattaqullaha mastada'tum isagana way ka dhacaysaa inta uu awood ka yeelanayo وعن العاجز عنه قيام بحويان استقبالك قفك كري وايين ويكدع عيسى كالمريض قفك حنون سناء أوكله أو من كان في السفينة أما قف سارا دوني أوكله أو السيارة أما وحويان بابور أو الطائرة أما ديارا فإذا خشي هدو عبصده خروج الوقت حلق بحيتان كيسا هدو عبصده قفك مريضك يقفك دوني دا سارا يقفك غاريك سارا يقفك ديارة دا سارا وتكنها يا سوغي أمهيو siday ku qabato ayaad u tukanaysaa salaadu wadaadadii diinta na soo gaarsiiyay waxay dhaheen ma dhacda la dhahaa ma hadhana waa la dhahaa ma dhacdana waa la dhahaa ka hadhi mayso kolba sidaad u awoodo ee tara aad yeelato umbaad u tukanaysaa marnaba ka dhici mayso in marfuuc aad noqoto oo takliifka dhan uu kaab dhaca mooyeen si kale ood ku daynaysaa ma jirto hadda waxa laga yaabaa dhalinyarada qaarkeed marka tiraahdo waa tuko wuxuu ku leeyahay inuu ku yiraahdo maradan daahiriga marada iga nijaasaysan soomina dhalinyarada qaarkood iyagoo sida oranaya salaadiina way soo gaartay wuxuu ku dahaarada haduu waayay ka waran marada uu qaba bas haday tahay wuxuu awrada ku asturahayay salaadiina ay baxayso maradiina aynan daahir ahayn ma maradan qaba nijaas abu salaadi uga tagahaya maya وتكن سيدا قيامك وكلا ويا سجنا ويكد عيسى لأنه دلال بالغ الربا سيدا كانوا كليتو هدو دلاله وكنت كنيا صلاة تكلم يسوعلنا يا سوعل المهيو فاتقوا الله ما استطعتم وعمن كان يصلي نافلة قفك تكن هي السنة أو وترا أما وتر وهو يسير أو وهو إسقنا يسير صعد راكبا إسقو صارا دابة وحلفوله حيوان كامركاز وحي دولك كدول سعودان حتى غاريده way soo xoolo saareen ba xoole gaari saaran ama baaskiil saaran ama mooto saaran yustahabbu lahu waxa loo sunneeyaa ida amkana haday uu karo oo awoodo an yastaqbila inuu jeedsado biha takbiirta koobaad yaani alqibla taqbilada inuu la joogsado inuu u jeedsado takbiirta la gaadi in alqiblada u jeedsato dhagwaad waad xidhan kadib meel allaaliya meeshay kuula jeedsato waxaad saarayd baad u tukanaysaa cinda takbiirati alihraam markii aad takbiiratu alihraam samaynayso thumma yattajihu waa jeedsanaya bihaa sunnadii uu tukanayay
حيث كانت وجهته دنع الله عليه دنع وجهته أي أتكنيا مدة أيضا وسننت ويا وسنوينك ويجب وحواجب كن قنيا على كل من كان قفكي هذا مشاهدا مد أجهد أو أركهيا للكعبة كعبة أن يستقبل إنه آذو عينها نفتيدا dadka cumraysta bishii waxa lagu jira Ramadaan ama xajka aadi doona idinkoo Makka joogtaan meelaynan Kacbada ka arkaynin ha ku tukanina horay u gala la idin ma dirsanin tuuxayn la idin ma dirin cumro iyo cibaado iyo waxa weeyaan xaj baad aadeen hoteelada iyo meelaha isku burburanina meel aad wuxuu ahaa Kacbada uga jeedo kaliya intaad ku tukato meelaha una kaga soo tukanin intaan joogno meesha soo inaan Kacbada fiirsano ma Imam Shaafici wuxuu dhigi jiray raxmatullaahi calayhi aragtida Kacbada oo qofku uu shaahido si dhab ah uu cayntiisa ku arko indhahay waxa weeyaan fiiqdaa buu dhihi jiray raxmatullaahi calayhi marka waa inaad caynul qibla qaabisho marka aad joogto Maka weeye ama meesha aad joogto wa amma man kana غير مشاهد لها كعبة قفكي أنا أسوي أركينين فيستقبل وقابل يا جهتها دين عيد وسوتشيت سنة يا سيد هذا إنك أناي حق ذي أمبان مارتي وسوتشيت سنة أما مركز كعبة تشوكتو وحال الربا إن عين تذا قابش أيا لو بهنياي عين الكعبة إن القابش أيا الربا أوذن ميلها محوها توحينين حكم الصلاة صلاة حكم كذا إلى غير الكعبة وقفك أتو كذا ميلا كعبة أهين خطأ لكن قف وحاد جهدي بإسكاك دحي عضي جهدي مركا إسكاك دحي عضي واد لا شيء كدب نواتو كتي مركا تكتي كدب با وحاكو عضاضي ميشاد أتو كتي إنين قبلة دي أهين معاد سمينيسا وهكذا مركا حكم كذا وإن صلى هدو تكذا إلى غير القبلة قبلة ميلا نهين حق هذا يسقو أتسدي هدو تكذا لغيم وحويان ضرور أو غيره أما غير كيووبا وريري بعد الاجتهاد انتو ددالي قداش هذا إيا والتحري آت كمارتي وددالك أسيبديي جازت ويبنانان إسا صلاته صلاة ديسي ويبنانان إسا ميشا أتسدو آيات دي با مركا إيمان إساو إلهي سبحانه وتعالى فولي فأينما تولوا فثم وجه الله مركز آيات دليش ميسي ولا إعادة عليه بريبان صفري وحانا هين رقل باتن كدو قاربان وذني قارب انتو ديقا نقا قلبان وريقا يسني ومحوها ميلبان كو وريقا يسني بورة وان دقني صلاة المغرب يعشه بان دوعنا إن تكنه صلاة المغرب يعشه رجي أو دن ولا إسخلافي أكثر كنجي وحنوم بلا مد وافق إلى الله أنا يقول كميش أنا قاني دين عقب لا يدنا وأنا قاني وحكولي وراني يقول راعة أنا أقانا قبل هذا ميش أنا كله جاي تري وأن قرنا يا قبل هذه يقول راعة وحال يري مايا كقول راعي ماينو وهي نين والبو ميشا دي تكتو مغعاغا كقر فرطا لهرتا هذا مغعاغا كقر بان باغو مركو إنو بريو بان أغان دونا كان يستحو تكذا يكي كالي وحا إلا تكذا يلوويل انتي كالتنا والبدين عبي تكتي قروب يدي كالتو دن هالقف وحتى دنعي قبل حتى عكت هذا صومريكو مجرو صلاة دي بان تكني عشي يا مغربكي صلاة الصبح مركان تكني بالي نين والبو ماشي ادو تكتي فيري انا يلا بدي ويل الى تكتي با قبلده او جيسن انا دولكا نقانay soo ma jeedaan marka way dhici kartaa oo qof kastana way ku dhici kartaa in badan oo hadda ragga fadhiyana way soo mari kartaa qisadaas iyada qofku marka asaga waxa la rabaa inuu dadaalo oo uu isku dayo inuu fiiriyo jihooyinka iyo kayfiyada iyo dhinacii iyo wixii waxa jirta marka hadda dadka markay Nairobi imanayaan baabuurku markuu North Eastern ka imaado
xaggan uu ka soo wareeganaya wuxuu ka soo gelayaa dhinacaas qofka Nairobi ku cusub kolku arka dadka xaggan u jeedanaya waxa laga yaabaa inuu u maleeyo dadka meel aan qiblada ahayn inay u tukanayn nin wadaada bari wuxuu igu yiri waxaan ka baqay buu yiri kutubtii aan akhrisanaynay hadaa dad muslimiin oo meel u tukanaya u imaato iyaga ahlu baladaho og meeshay qibladoodu tahay ku raacun baa celisay mooyeen sigiska maalintii igu horeysay waxaan ka baqay buu yiri inaan dhaho warka joogay inaan dhaan ku sigtay taala dadku way wareerayaan Soomaa marka qofku inuu dadaala la rabaa laakiin wayda jaa hadu yimaado man qof uu imaado yathiqu bihi uu ku kalsoon yahay wa huwa yusalli asaga oo tukanaya qayr alqiblati way oo fa akhbarahu u sheego bijihatiha jihat alqibla adoo salaadii ku jiro qof aad ku kalsoon tahay ku imaaday adigoo dhinac isaga jeeday markaas wuxuu ku yiri dhinacaad u jeedo qibladii ma aha xaggan u jeedso فعليه وحواجب كن قنيس قفك إسقى أن يبادر إن أدقدقو إلى استقبالها استقبال القبلتين أدقدقو وصلاته صلاة سنة صحيحة ويوريقا يرقاقا أسميي قبلتي آلي صلاة كبورين بيسوا مصلحة صلاة مصلحة يدو صلاة مبوريسو مركا وحاول يهدو قفات كو كالصونتا انتو كو إمادو كدو صلاة ويكا خلدنتا قبلتي حقا وهذا أقلاني مركو كوريتشي مركا وادلو وريقيسا ديني ميسد هذا صفكو اللي تاغن ياهي وصلاة قف با هاري قف با ماشي كبحي كوكالا إنو دركا مربو حمودي هدو دقاقين صلاة كتشبي صفكي إنو سيدي بكوكالا قوها هيا مصلحة صلاة مركا هدو دقاقيسو صلاة كتشبي ميسا إدم كيلاهي القيام ويجب بابك كاليتي صدحان وحاويا والقيام واستاقي وشوقي صلاة لو استاقا هيي ويجب وحواجب كن قنيا عليه على المصلي قفك تكنيا أن يصلي إنو تكذا قائما أسق أتاغا وهو قيام كن الركن وي والركن وطير تيرش صلاة كمذا وي إلا على المصلي قفك تكنيا صلاة الخوف موي وصوم الركاسو قفك صلاة الخوف كوتشريو دادك داد بدن أو واحد جرى برنامج كائنا وفضلانين قفك كل بس ده يوقف فضلاته يؤتك لكن كدقاق وما هي ماشيسة قفك أسوي عذر دار شرعي أو رخصة هلا ضرورة وحلو قدر كذا لكن ولقي كدقاق ما هي الركن نمديسة قيامك إنه ركن يهي تيرش صلاة كم إذا إنه يهي والقتال الشديد وحوي دقال كذا فيجوز له وحاوبنا أن يصلي راكبا إسقو صارا تانجي أسقو صارا ديارة أسقو صارا gaariga kaleeto oo dhan ciidanka asagoo saaran si kastaba isagoo ayuu maartay u tukanaya wal marid qofka jiran al aajizi ee kari waayay an al qiyam istaaga asagana way ka dhacaysa fa yusalli wa tukanaya jaalisan isagoo fadhiya in istataa'a hadii uu awoodo fadhi buu ku tukan qofka taagnida ku tukan waayo waxa la yiraahdaa maxaasinta diinta islaamka waxa kamid ah wixii adkaada fudayd buu isu rogaa qofka uu taagni ku tukan waayo fadhi buu ku tukan hadaad fadhiga ku tukan waydo جيف بات كتوكن زوما جديد ويبوحي أتكا ويسبدل قبح يسبدلها هي وحاوي فضيد بيسبدلها هي فيصلي وتكن يا جالسا يسقو فريان استطاع وإلا فعلى جنب دنا يسقو وشيفا والمتنفل قفك السنة سنة يسقنا سيدوكله فله وحاوسوا قفك المتنفل كسنة سنة أن يصلي إنه تكذا راكبا سان صومري أو قاعدا يسوى فديا إن شاء هدودون ويركع والركوع هيا ويسجد وسجود هيا إيماء إسقو تلمام هيا برأسه مدحيسة سوى مدحيسة سدا أو تلمام هيا وكذلك المريض قفك حنون سنة سدوكله ويجعل وياله هيا سجوده سجوديسة تلمانتي يا إيماغي حق هذا أخفض وحوسية من ركوعه مثلا فدبات كتكتي مركز ركوع عيسو سيدنا به سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه سجودي نواتكهوس ماريني ركوع دي سيدنا ذهيد سجودين هوسم بعد كم مرينيسا سيدا سالك والله الفعل أبلغ من القول
wadaadadii diintana soo gaarsiiyey saas dheh qofka inaad ficil ahaan wax ku tusiso yaa ka xeel dheer markaad dadka wax barayso inaad afka keliya wax uga sheegto soo ma qofkaad ficil wax ku tusiso inuu asaguba haddee eber yahay mooyeen wuu qabanayaa soo ma afkii laakiin waxaa laga yaabaa inuuba hadhow uu gafo tamthiilkii inuu ku gafaa dhici karta waana dhibka naga haysta salaada hadda qowl baa laynagu soo baray ficil laynaguma soo barin qof walba siduu rabo unbu u tukadaadeedna siduu kasoo isaga maaragtay uu maqlay uu arkay una dadka uu uga jeeday unbu isaga tukanayaa bal culimo kitaabadii weliba akhrinaya yaa awood ay taqyiir ugu sameeyaan kayfiyaday u tukanayaan oo caada ka baxa ah inay caadada ka baxaan oo cilmi tukadaan ay ku adag tahay tawfiiqda marka ilaahay baa iska leh walaa yajuusu uma bannaano lilmusalli qofka tukanaya jaalisan isagoo fadhiya an yadaca inuu dhiga shay-an wax cala alardi dhulka korkiisa marfuucan soo taagan yasjudu calayhi uu ku sujuudahayo halkan iisoo qob kursi baad ku tukanaysaa inaad dhigax dhigato weeye hortaada kor kuugu soo taagaya hadda waxaaba isa soo kor saarsaaratay barkimo oo kale hadda kaloo kale dhowraad isa soo kor saarsaaratay markaad sujuudaysid waxaa weeye aad rabtaa inaad ku sujuuddo taas weeye midda la diidan yahay maxaa lagaa rabaa sidaan soo tilmaannay oo ahayd rukuucdan inaad sidan tidhaahdo sujuuddana inaad ka hoos mariso waad fahanteen baan u malay inaad wax soo saarata meesha oo tidhaahdo markaan sujuud ayaan rabaa inaan kor ugu soo qaato maya kamaa dakarnaa sidaan soo sheegnay idaa kaana laa yastatiicu haddii uu yahay midaan awoodin an yubaashira alarda bijabhatihi haddaadan wejigaaga dhulka la xidhiidhin karin waxaa weeyaan tilmaan oo rukuucdaada iyo sujuuddaadu ha kala hooseeyaan markaad tilmaamayso asalaatu fi asafiinati waaa'ira waxaa weeye qaybtii hore tilmaan bay ahayd haddana gooni buu baab uga dhigay sheekhu ileen waaqicii baa maanta sida ahoo dadku inta badan waxay ku safraayaan ayay waxa weeyaan u badan yihiin kuwaas iyaga ah asalaatu salaada tukada fi safiinati doonida dhexdeeda doonidu marka ma kala duwano ama markab ahow ama qarquurka yanka asaarow ama mid dhexdhexaada ama mid lagu dalxiiso ama kuwan waaweyne kobanaanka milyan ee tan qaadaas fuul dooni waa dooni uun ama tan gacantaada adiga ku xurbinayseed ku wado qaado ama midda tiirka aad ku riixi ka dhigo dooni safiina waa safiina marka waxaa weeye taa'irana waa taa'ira ama midda labada qof qaada ha noqoto ama midda weyn ee boingiga dad badan qaada ha noqoto mid allaala miday noqoto diyaarada iyaduna waa diyaaradu wayajuusu waxaa bannaan salaatulfariidati salaada waajibka ah fi safiinati qofku inuu markabka ama doonida ku tukado wakada taa'ira diyaaradana inuu ku tukadaa u bannaan walahu waxaa u bannaan ama walahu waxaa u ahaaday qofka musalliga an yusalliya inuu tukado fiihimaa doonidii ama safiinadii iyo diyaaradii qaacidan isagoo fadhiya idaa khashiya hadduu baqo calaa nafsihi naftiisa assuquuta inuu dhaco fadhigaagaad ku tukan salaaduba siday kuu qabato ayaa loo tukadaa wayajuusu waxaaban u bannaan qofka ku dhex jira doonida ama diyaaradda an yactamida inuu cuskado fii qiyaamihi jooggiisa calaa camuudin tiir inuu cuskado ow casan ama ul inuu cuskado likibari sinin ama qofka tukanaya oo dhanba xataa khaarijka xataa maaragtay safiinada iyo doonidaba xataa dadka duqayda ah likibari sinin da weyni darteed ow dacfi badanihi ama nugayl ku imaadoo marad keenay haddaad taagnida kari weydo tiirkana waad cuskan kartaa ulna waad cuskan kartaa labadaba way kuu bannaan tahay weeye aljamcu bayna alqiyaami waalqucuud inaad isu geyso istaag iyo fadhiba hal salaada inaad salaad isku darto adoo taaganna tukato adoo fadhiyana tukato hal salaada bannaanaantii ay bannaanaatay wey wayajuusu waxaa bannaan an yusalliya qofku inuu tukado salaata alleyli salaatu leylka qaa'iman isagoo taagan
أو قاعدا إساقو فديا بدون عذر دار لآن يا أبنان قفك صلاة الليل كتكني قفك صلاة الليل كتكني وحا أبنان إنه أساقو تاغن تكدو أما أساقو فديا تكدو وإن صلى وأن يجمع إنه إسكدر بينهما استاقي يتاغندي لما ذيبا تاغنينا واد كنت كان كرتا هل صلاة قيبت هوري قيبت دحانا قيبت هو الضمانا وحد كدي كرتا فدي فيصلي وتكنيا وقفك صلاة الليل كتكنيا ويقرأ وأقريها يا جالسا إساقو فديا وقبيل الركوع ركوع ذا هرتيدنا يقوم واستاغها فيقرأ وأقريها يا ما بقي وحي هري عليه من الآيات آياته هري أيو آخرنا يا قائما أسقو تاغن ثم يركع وركوعيا ويسجد وسجودها يا ركوع يسجد لبدا واف عربي لكن صوماليدنا واستعماشا ركوع مركا إنك في صومالي وحاول لو يقبسي أما فوررسي سجودنا ووجد الدك صومه لبدي بمركا قفك وحاول sidaasuu ku samaynaya markuu rukuuco uu sujuudi ثuma yasnacu wuu samaynayaa mila dalika fi الrakcati الثaaniya ragcadda labaadna siduu ku samaynaya salaatuleylkii weeye midaas iyada waidaa sallaa qaacidan hadduu tukado isagoo fadhiya jalasa waa fadhiisanayaa mutarabbican asaga oo mutarabbica متربع يا تلمامي كرا محلقة وضع متربع سلمك يقفك إنه فريستو لغيه سهري سومر يوي صدافي لوضع ها وكاس وأي جلسة فد كستاء أخرى كلا أيضا وأو فريسان كرا يستريح بها وكنا سنيو وأنكو حنوسنينينو intuu taagnidii kari waayay haddana fadhiyuu kari waayay noqon ka dhigan maayo mid lagu laaziminayo ma jire ka uu nugul ee asaga uu awoodeeda leeyahay ee uu muxuu ahaa ku aan dhibaynin oo istiraaxa uu ku helayo iyo nasniimo ayuu ku tukanayaa wey as-salaatu fi an-ni'aal kabihi oo lagu tukado salaad kaba lagu tukado Soomaalida waa taqaanada de kaba salaad lagu tukado way banacabtaa dagaal bay ka xigtaa rag badan baa loo soo bureeyay انت مساجد كما قالين بود لقول له فبحيي marka in badal waxaad iga maqasheen caadada in laga tago oo maxaan ka wadnaa marka tukani cilmi tuko ee caada tukanin marka soomiha caada soomine cilmi soon oo cibaada soon marka xajini هعاد حجننا علم حجي أو عبادة حجي مركض عني هعاد عننا علم عن وين هذا علم عنتين العادة عنت معها وحول بمركب وحرمنا إن أكبح نطاقات عادة أو نقضى نطاق علمي قفكنا وح علمي أنفعه صومالي وحيدهن إشكن لودا iyo geel iyo iskil la dhaha arigu ma aha iskinku ma jiro marka geel iyo loo hadaad xiri bur yar oo cawsa iyo lagu ma qabtee geed adag baa lagu xiraa hadii kale uu iska waxa weey intuu fujisto iyo iska tagi way hadaad caado un ku socoto meel cid aan baad soo fadhiisan doontaa ويجوز وحاو بنان له قفك مسلم كي تكنا أن يقف إنه استاغو صلاة ويستاغو حافيا استاغو كبلا كما يجوز سيده ugu banaantay lahu asaga an yusalliya inuu tukado mutana'ilan isaga oo qaba labadiiba waa lagu ogol yahay wal afdalu sida fadliga badan buu ku yiri sheekhu waa qodobka 14aad an yusalliya inuu tukado taaratan hada kabala aan ku tuko wa taaratan hakada adigana waxa weeye adigoo qabana tuko حسب ما تيسر له سيدا كوفض ذاته
falaa yatakallafu isku dhibi maayo libsahumaa inuu u xirto lisalaati salaad walaa khalcahumaa inuu siibana isku kallifi u maayo bal in kaana hadduu yahay xaafiyan mid kabala sallaa xaafiyan isagoo kabala buu tukan wain kaana hadduu yahay mutanacilan mid kaba qabana sallaa wuu tukanayaa mutanacilan isagoo kaba qaba ilaa liamrin caaridin arrin soo darisay mooyeen arrin soo darisay hadday jirto waad siibi nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo kabaha ku tukanaya yuu maliku jibriil u imaaday calayhi salaatu wasalaam markaasaa waxaa la yidhi kabahaaga waxaa ku jirta waxaa weeyaan wax yar baa ku jira nabigu wuu siibay calayhi salaatu wasalaam salaada dhexdeedii buu ku bixiyey saxaabadii o dhanna way bixiyeen kolka arkeen inay nabigay raacayeen calayhi salaatu wasalaam saxaabadii o dhanna way iska siibeen nabigu wuxuu yidhi marka calayhi salaatu wasalaam war maxaa idinku dhaca u siibteen kabihiinna waxay dhaheen markaan ku aragnay adigoo siibay waan anaguna siibnay waman iqtadaa biabiihi famaa dalam adaan kugu dayanay nabigu wuxuu yidhi aniga jibriil baa ii imaaday calayhi salaatu wasalaam wuxuuna yidhi kabahaaga waxbaa ka hadlaysana bixi saasaan u bixiyey idinka xaggeed ka hesheen adiguna adaan kugu dayanaa lay walakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana waxba mayna bi'inin marka inuu qofku iska kallifo lama rabo laakiin waxaa taalla mar kasta qofka muslimka waxaa la rabaa inuu xikmad socdo xikmad dhaqan baa loo baahan yahay mar kasta siday wax yihiin inaad xaaladeeda qiimaysataa lagaa rabaa fiqul waaqic bay dhahaan culimmada muslimiintu qofku waa inuu waaqiciisa fahansan yahay oo sida ay wax yihiin inaad qiimaysan karto oo sida aslamka mar kasta aad ku dadaali kartid ayaa loo baahan yahay laakiin haddaad iska orodo khatarteeday leedahay fiqul waaqica cabdullaahi ibnu cabbaas radia allaahu canhu oo masjidkiisii dhex fadhiya yuu nin u imaaday wuxuu yidhi cabdullaahi ow sheekhnimada innagun baa daydayna saxaabadii maqli maysid sheekh abubakar sheekh cumar ibn alkhadaab sheekh cali ibn abi aalib sheekhnimadan innagun baa uun raadsanayn dadkii ilaahay iyagoo adduunka taagtaagan jannada ugu bishaareeyey hal nin oo intii kitaab loo tarjamaystay lagu leeyahay sheekh hebel waan inaad aragta waa naadir bal waa mustaxiil bay ku dhowaanaysa marka cabdullaahi ibnu cabbaas radia allaahu canhu oo ninkuu nebigu u duceeyey ahaa oo tarjamaankii ummadda ahaa oo muftigii ummadda ahaa waa cabdullaahi ibnu cabbaasun marka cabdullaahi ibnu cabbaas oo masjidkii dhex fadhiya buu nin u imaaday wuxuu yidhi cabdullaahi ow qof muslima qofkii dila towbo ma leeyahay qof muslima qof dilay towbo ma leeyahay cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi maya towba ma leh aayaddii buu dabada qabtay nusuustii oo dhan buu isugu daray ninkii waa iska tegey maalin dambe haddana nin kalaa imaaday wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu cabbaas ow qofkii qof muslima dila towba ma leeyahay wuxuu yidhi haa waalidkaa ma nool yahay waddaduu mari lahaa buu u sheegay ardaygiisiibaa afka u soo dhoweeyo wuxuu yidhi hal majlis meel basa adigoo fadhiya yaa laba masalo isku mida laguu keenay laba su'aal laba jawaab oo kala duwanna waad ka bixisay nin isku dhex yaacay baan u muuqataa buu yidhi oo duqoobay nin asaasaqoobay oo isku dhex yaacay baad u muuqataa buu ku yidhi wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu cabbaas maya ninkii hore ee ii imaaday ninkii hore ii imaaday waxba muunan dilin wuxuu rabay haddaan dhaho towbo wuu leeyahay inuu markaa wax dilo waa fiqul waaqici soo ma jeedid wuxuu yidhi saasaan marka uga celiyey kii kaleetee labaadna qofkii buu soo dilay haddii la dhaho towbo ma lihid muslimiin kale buu sii gumaadi lahaa xikmatulwaaqic marka fiqulwaaqica xikmaddiisa iyo maslaxada ninka culimmada ah markuu jawaab intii la weydiiyo uu masale la weydiiyo uu jawaab bixinayo waa inay cuskan tahay masaalix waxaa weeyaan mafsado ka hortageed iyo masaalix hagaajinteed shay xun inaad ka celinayso
iyo shay wanaagsan inaad hagaajinayso tugayso marka waxaa la rabaa inaad xigmad tasarrufto masaajid goglan oo gogolle intaad oray adoo dhiiqadii islii soo dhex qaaday inaad intaad tiraahdo anu kabahan ku tukan aad ummadii oo dhan muxuu ahaa masaajidii ka hadlayso ma xigmad ba maya xaaladeeda markaad meesheeda markaad hesho waxaa laga yaabaa inaad safar yar gasho waxaa laga yaabaa inaad hesho masaajid oo aan xitaa gogol lahayn la xugum ma aha masaajidda goglan iyo meel aan goglanayn isku xugum ma aha masjidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada intii badnayd masaajidda meeshay ku tukanayeen waxaa weeyaan fil baraari bay iyo masjid bacaada meeshii marka aad ka hesho oo aan kabahaagu aynan wax ka dhibaataynaynin kabuhuna dharka unbay la mid yihiin kabaa nijaasa mara nijaasa ku tukan maysid kab nijaasana ku tukan maysid kolkay daahir kuu noqoto meeshii kaleeto kuu fudud oo aynan lugahaagii iyo kabahaagii waxalaynaynin waxaa weeyaan ku tuko imaamka la yidhaahdo imaamu nawowi raxmatullaahi calayhi wuxuu yidhaahdaa kabaha in mar lagu tukado cumriga waa sunna qofku inuu waxaa ujeedaa waa waajib maxaa jira la yidhi waa sunno ay muslimiintu dayaceen buu yidhi oo in la nooleeyo si jumlo ah baa loo dayacay buu yidhi marka in la nooleeyo oo sunnadaas la nooleeyo waa waajib qofka cumrigiisa inay marku waajib noqotaa la rabaa buu yidhi si uu u nooleeyo sunnadii aynan u burburin يعني ما ديدنا سنة نمذا لكن وحولي ما دام دتك ضيعين وإلا صونوا ليه ورحم الله إلهي أن حريستو أدونك صونوا ليه سنة المسلمين تو أي كتجين علماء ودعيان قف كستو مسلمة أو سنة دتك ضيعين صونوا ليه سو حاجاتية وإذا نزعهما هدي أصيبك بهنا فلا يضعهما دقي أمهي عن يمين مدكتيسا وإنما عن يساري دنكيسا بدحب دقها يا واكبه إذا لم يكن هديونا نهين عن يساره دنكيس بدح أحد يصلي تكنيا وإلا وضعهما ودقها بين الرجلين لبدي يصلوا قد حضوضا بذلك صح الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدلوا قد حضوضا لدقوا فأنا النبي كان كأصح عليه الصلاة والسلام الصلاة على المنبر منبر كي واكن منبر كي يقول لك كذو نبي بمكتك عليه الصلاة والسلام لماذا دتكو بريي ويجوز وحابنان صلاة الإمام إمامك صلاة سابنان على مكان أميل كتو كذا مرتفع سريسا كالمنبر منبر كوكله ميل سرين إمامك كتو كذا أبنان أو لماذا للتعليم الناس دتك مركو بريو تعليم الناس دتك مركو بريسو ميل كسر رئيسات كو استاغي كرتا يقوم عليه وكو استاغايا فيكبر وكو تكبيرنا يا ويقرأ وكو آخرنا يا ويركع وكو له يقبسنا يا وكو فوررسنا يا وهو عليه أساق ماشي سرع مرتفع هيتسارا ثم ينزل ودقها يا ألقى قرى قدال بوس ودقها يا حتى يتمكن انتو كدقو من السجود سجودا على الأرض دولكا في أصل المنبر منبركي جرديسي أما دولكيسي انت وجه دولكا كدغو دي دب يوسو دغهيا ثم يعود عليه ماشي سرع كل بنيا فيصنع وسمينيا في الركعة الأخرى ركعة كلنا سيدي وكلو كسمينيا كما صنع في الأولى واتكو آخرين واتكو ركوعي كل كسجود سنة دي دب دغي صلاة هذه مية حمانة يسادقيد منبرك كدك تيا دولك آدي مايا صلاة وان مصلحه ومدي بعد وحبر يسا وجوب الصلاة إلى سطرة واجب لماذا قفك إنه أتك ذو السطرة أو جيتكي وشي باشي السطرة لا يتوقفت واتن qofka muslimka markuu tukanayo waajib bay ku tahay inuu sutro samaysto wadunuwi minha inuu u dhowaadana waajib bay ku tahay intaad halkaa dhigato inaad muslimiinta ku dhigto tiraado halkaasaan sutradii dhigtay wax halkaan marayaa ma jiro maanta dhan gacanta sidaa ku hayso ma saxba maya waa waajib sutradaada inaad u dhowdahay wejiga meesha dhigaysa horteeda waa inay taalo sutradiina waatan
intaanoo kale weeye dhibka inaga haysta masaajidkeennan hadda sutrada dadka waxa weeye sunnadaa laga tegahayo sheekhu laakiin waa waajib buu yidhi waana waajib sunna ma aha sunnada waxaan ka wadaa dhaqanka waxaa weeye dhibka naga haysta ma allaahu bihi caliim intee lala ekaysiinayaa sutrada intee ugu yar waa dhudhun wakaa dhudhun waa halkan suxulka ama jiqilka kolba midkaad u taqaano af soomaaliga ilaa inta u dhaxaysa intaasoo 3 loo qaybiyey ugu yaraan waa inay la ekaato taako camal oo kale waa inay dhulka ka soo sarrayso waana inaad iyada isku toosiso oodan dhinac iska marinin inay daruuro jirta mooyeen wataa marka sutro taasaa laga wadaa ويجب وحا واجب كن قنيا أن يصلي إنه أتكذا قفك مسلم إلى سترة وحو هرتيس دقنا يو سترة لا فرق مكة لهبوك يري في ذلك وسترة سميسك في المسجد بين المسجد وغيره هذا المسجد عاجد كنت كنا يدحديسا إيو غير كيبا أديك وبناك كنت كنا يبا سترة وإناد سميسة فرق مكة لها ولا بين كبير وصغير قف وين يقف ير كل وإن سترة لسميسته دبك نجاي استعطب حكم إذا وصوت داهي سترة ما دقنا يو ما شهدتك كبحايين بسلاتك قلايا سترة نومتالو لما بقول صدح بقول وقف مسلمين إذا ضنتوا هذا قبصان لايد باضيع عيسي ودباتونيس انت دبقيستي واجب نواد كتكتي إيذاء المسلمين نواد جارتي قفك هدو قف مسلم ومؤمن دبو إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا واتسوقلي دليلكو نين وقوني وراع نينك وافعي وواسفة قفك إلا إمادة وكدعي masaajidkii meeshii laga galahayay buu asagoon sutro dhiganin buu sunno ku tukan sunnuu galay waajib buu ka tegey muslimiintiina wuu ku dhibay oo intaasoo duqo xataa kaadi haysay oo musqusha aadi lahayd baa u xaniban dartii iyagoo inay ku dhacaan muxuu ahaa nahyigii ka baqahaya asagana sunnuu iska tukanaya bal si dheh si la dhah ma laha أودات كان إن كشكينا يوم أنتو إنه هذا الحنده ديدنا وكعب صدق مركزه حجري مركز سلة يلا لواي باسلة يلا لواي بور يعني وادقال ماشي وقدام بيس أسقى ضدك هذا ما نقون كرتيد شرطة وما نقون كرتيد بوليس وما نقون كرتيد قف كمسلم كوحال الربا إنه قف مسؤوليات له oo markasta qayrkii wax u reebahaya inuu ahaado la rabaa laakiin qofku isaga intiisa uu iskaga guruufsanayo oo aan cid kale aan ooguba jirin jadwalka inuu noqo waa inkaar weey aad bay u xun tahay li'umumi qawli sallallahu alayhi wa sallam uu yiri nabigu la tusalliha utukanin ila sutratin hawtukanin ina sahabatukanin ina sutra dhigata mooyeen masalaadii ka tag baa laga wadaa maya waa waajib la imoo baa laga rabaa laga wadaa ولا تدعهن كتجين أحدا قفه يمر مرة بين يديك بين يدي سترتك هذه السترة دي لحظة هذا قفك مرة ينا وحويان هكتجين ويجي اسكعلي فإن أبا هدوديدو فلتقاتله اسكدعي واد اسكدعيني لأن قعنت تكو حنوجن قعنت تكو قبا واد اسكعلين واسكوديدي واد اسكعلي سي وكوديدي مركز صدحات gacantaad ku adkaynaysaa waxoogaa baad ku adkaynaysaa hadduu kaa xoog badan yahay ka warran hadduu ninkaa feero weyn yahay ka warran aniga waxaan u taagnaa nin intuu gacanta saa yidhi oo diiday oo haddana lamcoo lagu soo imaaday intay la qaaday xagga la iska dhigay oo xagga laga maray gebigiisiiba marka ha u malaynina wax kasta way dhici karaan wax kasta way dhici karaan marka waxaan ka wadnaa mar kasta waxaa la rabaa inaad
تصرف كابو إنه تصرف حكمة ليسن والنقضه هذا ركتوا إن ماشى اللي بقول شلعنا يو هذا هسات كينن صوت أسمع سلالي ويا نفته وحوي إلا واردية يوي فإن معه قرين يعني الشيطان قفك أديسك علينا يسوحن قدينا يا إنه كهرجو يا صلاة هذا جو ينكا كل ريحة والشيطان قرين على الصعدة رواية ده كله استجاب الشيطان صارت فعل كقفك مركو فعل حرام سمينا يو استجاب نفتي سوى الشيطان وحرام مركات سمينيتي ويجب وحواجب كنا قلنا يقفك مسلم كأن يدنو منها إنه أدوا هذا سترديسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أمر كي النبي قدرتي وكان وحوها بين موضع سجوده بين موضع سجوده صلى الله عليه وسلم ماشى ووجه دولك دغاي iyo والجدار دربك الذي كاس يصلي إليه وتكني نحو ممر شات ناف أريا إن أمراء دحيسي صوما انت سو كلوي انت هذا محمد كرا ناف يرو أريا ومر كرا صوما ساسو كلوي marka laba rabo inaad halka dhigto ii soo mara malgi galaatiraad sooma faman fa'ala dhalika qofkii sameeya sida isaga oo sutrada sameeysta intaana u soo dhawaada faqad ataa wuu la imaaday bidunuwil waajibi dhawaanshihi waajibka ahaa wuu la imaaday miqdaar ارتفاع السترة مقدارك سترة إنه كر صون نقطة وان استوسناي صوما تاكو عمل وإنه كر سوتشرتو هذا يكوينا تكورن جدار كان درب كان هذا نقطة نعم لما دي ذيو مرودي كدي قاعد كلا طبق كدي قاعد ضربت لكن وإنه أنت أبوه سيساي نقطة أنت إليك بتسوتاجن ويجب وحواجب كنا قلنا يعني ويجب وحواجب أن تكون السترة إنها مرتفعة متكر سوشتا عن الأرض دولكا نحو شبر تاكو أو شبرين أما لبو لقوله صلى الله عليه وسلم لبت تاكو أما هل تاكو إنه سوشرتو إذا وضع هدودغو أحدكم متكين بين يديه اللي بهرتيس هدودغو مثل مؤخرة الرحل فردها مركي لفوليو رحل قوضا قيبتيسا الدنبه إن لأغو كلا هديتاي فليصليها وتكدو ولا يبالي دنيونك قلين من مر قفك مر وراء ذلك سترد هذا قلاش دادتك مريا وحاوي وحدا نهدك قليسا مجرتو لأن سترة والأذو كدقتي قفك هالك مريا إساقي أتالا كورها فرسكا قفكو مركو فرس فولايو وحوليه هاي محبها اليرو اللي صارتو هورينا كاعلين قدالنا كاعلين انت سوكوسا انت الى مؤخرة الرحل قياس اهان انت الى وكله مركي والله صارا كدبنا عينك iyo waxa lagu xidhaa bayda daba geliska intaas lagu isagu marka waa qaybta qofku markuu faraska fuulo gadaal ka celinaysa way mu'akharat ar-rahl intaas laga wada shukran sheekh wa maadsanta ويتوجه وانا وجهتنيا الى السترة مباشرة تصبغ سترة ugu aadaya مباشر كهذا سلاس لغا ودا يتوجه اسكو توسينيا لأن الظاهر من الأمر بالصلاة إلى السترة سيدا الظاهر كأ صلاة أمر كليس أمر سترة إن لو تكدوي وأما التحول إن لغا يكسد عنها يمينا دنك مديك أو شمالا أو يسارا بانوشا دنك بدح بحيث أنه لا يسمد أن كتوسين إليها سترة صمدا توسيد فلم تثبت مسقنا كتوس سترة هذا لنا سجير دك حديث تدايسا بدح سجير دك وحير إسكاب بحيث كتوسين وحاول حديث مسقنوك يا شيخو ويتوجه وان كنا قرية ويتوجه وأوجه سنة إلى سترة مباشرة ستوسا مباشر يعني وستوس وأوتوسا
لأن الظاهر سيدا موقت وظاهر ككوا من الأمر بالصلاة أمر كالليس أمر الصلاة إلى السطرة حق هذا وحاوي يسيدا سوي إن أيضا التوصلو آذوي وأما التحول عنها إن لقوا ريكتو دينا لو غيرها تيسدو يمينا مدك أو يسارا أمدنك بحيث أنه لا يسمدون يسكتوا سنين إليها سطردي سمدا توسد فلم تثبت أحاديث تيدو مسقنان إسكاك تقوي وتجوز صلاة وحابنا هي إن أتكتو إلى العصا المغروزة في الأرض مرجن له ودولك قطن سطي أيضا وادو تكن كرتا سيدو نبي سمي عليه الصلاة والسلام أو نحوها أما وحي لمدا أو أدولك قطن سطو وإلى شجرة جيدنا سطرات كدغان كرتا سيدو نبي سمي أو اسطوانة أما تير شاس وكله بعد جانا وحاوية كدغان كرتا أو وإلى امرأته المضجعة هوين ذي حاسكي سهوردنا سطرو كدغان كرا على السرير سرير تسارن سرير تبي شفتا سطرات كدغان كرتا أيضا هذا يسوق دي سكوا ورا مركا كوسو أدو marka waxa weeye wax kasta oo maanic ka celinaya qofkii adiga iyada in kala dhaxmara inaad iska celiso wax kasta oo ka dhigan karto ayaad ka dhiganaysaa weeye wahiya tahta lihafiha iyadoo maradeedii huwan wa ila daabati naf aad fariisisay ama aad xirtay asagana sutraad ka dhigan kartaa walaw kaanat jamalan haduu ratibaha ahaade sutraad isagana ka dhigan kartaa وحون صلاة دادي إن معرتي كاعلية بالغاغا باهن يهي هذا wax kugu xumaadaan hade waadun iskaga cararaysa laakiin qof iska hurdo khoorinayo meel illa iska jiifa in gadaashiisa lagu tukado nahyi baa ku soo aroor kin islaatan sariirta saaran hoosteeda inaad iyada sutra ka dhigato waxa weeye waa ku banaan tahay tahriimu salaati ila alqubur حرام نمدي صلاة إن حوالها حق هذا اللي تكدو سمينا نرقد مساجد حوالها كل حيال قفك جنازة دي ملقو تكره صلاة واجب ملقو تكره يا ما يا ما شدت بالغو حوالها موين مسلمين بالغو حوالها موين ملقو ما تكنه يا حق هذا اللي ما تكنه مساجد أنا صلاتكم أصحيسو هذا المساجد هو الرئيسي ويحوالوه الدنبيين حوالها اللي بيحينوا ملك للجين هذا مساجدك محوها حباشه الرئيسي ومساجدك دنبيين مساجدك على بحين ميل يسوق تجمعيان حباشه على المربع اللي قلت كان كرا قف مسلمة أو أسوأ اللي قلت كان جنازة دي مسلمين تعين كنت كان اللي ددتشيء لحب علي قف كأنت اللي كرت قال اللي كرت كان ميت كي بجنازة أسوأ اللي كرت كان هل كان مربع حوال نحيا أي صلاة وأصحيسا أنت كليتهم مايا ولا تجوز صلاة مبنى إلى القبور مطلقا سيديسا إن صلاة لو تكد حق قبورها مايا سواء كانت قبورا للأنبياء أو غيرهم أما صلاة أنبياء قبور أنبياء النقطة أما بني آدم ككلها النقطة مايا لو تكن مايو كلا إحدى نن شيخ يا بري متكن كده حيالك كريكو يا waxaan ugu tagay aniga sheekhaygii buu ahaa tafsiirka buu ii akhriyay kulligii birabbi naas laga bilaabo ilaa suuratu waxa weeye suuratu al-faatiha yuu ii akhriyay asagoo ku tujin raba dad nin qaraabada ah oo dhintay qabrigii masaajidkii ku dhex yaalay xabaalaha kariikoo baan u tagay waxaan ku yidhi salaad kuma asaxayso مساجد كلان لسه انت انو جيران غيسنينا wuxuu yiri hay khilaafin sheekhaagi baan iga leexo waxaan ku yiri wax macruuf amarna kuma khilaafeen laakiin waa mas'ala diini ah oo ka hayo adigana xaqaad igu leedahay baa waxa kamida marka aan ka hayo wixii aan ka laga hayo inaan ka qabto marka xaqaagi baan fulinayaa baan ku yiri ninka waan qaadaynaa masaajidka laadis baan ku soo tukanaynaa markaas aan keenaynaa idin raaci maayo yiraahdo halkan ka bixisaan bartan hadaad ka qaadaan
idinka dabageli maayo dhib malaan ku idhi sheekh annagaa kusoo tukanayna iska sii joog waan qaadnay waan kusoo tukannay sanad mise 2 sano ku dhow sheekhi ii umalsanaa oo ii cadhaysnaa kadibna wuxuu yidhi waad iga qumanayd 2 sano kadib jazaaka allahu khayran أنا ما لحن كدم كذي هذا وما سنتاي بنقول جزاك الله خيرا شو بجدان شيخ ناصر الدين الألباني شيخ هذا كتاب كيس أنا آخرنا إنه يعني ساقو كتاب كأدب المفرد كآخرنا إياه يوحي يسكو خلدي لبا تابعي لبنن هشام بن عروة هشام بن عامر بيسكو خلدي أردي سبا مركا وشيخ وحي ماشان ننكا كتير وهشام بن عروة هشام بن عامر معها وأرضي وحو آخرنا يبقى أوتوسي ساعات كدو بو أوي ألباني هل ساعة كدو فرحة مربع لا أوي موقتها أرضي جاجي أو كصحية أو قيمة بدن صمة آد بو مراقبة ويسكوي رحمة الله عليه آد بو نويلك وجود عيي إلهي إنه بركة أيوه أو نبركيسن أسانيد ننكل سر نبايا سو نبركيسن ما قف كستا أو أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام برتا وبركيسن يهي قف عن بركيسنين ما برنكروا أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وحله بوي عرب كانوا نافر يلا باتنك ساعة كهيون صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توفيق ناس قف بركيسن بهلي قف كستا إسكمهلي مركا وحاويان إن لقاتوسيو سيدا لبا أقروا هرتا بني آدم باتايه إن wax lagu sixi karo wax ka khaldami karaan moodmoodhu yaa nina ma marka waxa weeye khayrka waa la isu kaalmaysta wanaagana waxa weeye waa la isu kaalmaysta xumaantana ka taggeeda waa la isu kaalmaysta iyana waa wanaagi sooma تحريم المرور بين يدي المصلي ولو في المسجد الحرام تحريم المرور مرتانكي حرامتي نمديسي بين يدي المصلي قفكي تكنا يهرتي سلمرو ولو في مسجد الحرام مسجد الحرام بها النقضة مثلا والله يا شيخة مسجد الحرام ما ماله يسترك سرتكلي كرتابة مايا وأركته لكن هذا دلال هذا ملو مرة أركتي مسجد الحرام مركز أساقه وحاوية ووحوالبا بوحوه وككر مريا نين شيخ oo aad u qiimo badnaa oo ragii minhaajka xifdisnaa Soomaalida aad oo u akhrin jiray kitaabka yaa waxaan isugu tagnay xajka wuxuu ahaa shaaficiyada dadka waliba aadka ugu sii adag buu ahaa oo haween haday korkiisa sida u taabato dagaalami muudi ilaahay curki awar balaa dagaal gali وسو حجي مكو إمادي وركن من أركان الإسلام هذا مركي حج كلا جوجا طواف كإيا سعي كإيا ماشنا وحاب اللقيا بإسلام بريد إن تكون سجود أما كركوعده ومستحيل قفك إنه النقضاء إن عن لتشيرين أو إن هوين مرين أما لقاء كر استاجن أنا هوين أي بعناه سجود سن إمام كجداشي سيهلك كأيك فريستي وأنا سجود سنة تيجورك على سجودي بهالك أيك فريستي أنت أيك عايز يبان سوهاي ما حد سمين مضرك بدل مركان إن الله هذا حكمة التصرف بالربا هدي مركان يقول فريستي عند معين الإسكاك عي حاجين قوانيا سو بالك لماها أنت أيك عايز يبان سوهاي مركان meel uu deganaa baan ugu tago waxaan ku yidhi adeero waxaad ka warantaa sideed noqotay waa inagii qabnay haddaanay shaaficiye taabashada haweenka xataa bikayri qasdin inay salaada jabine rukni min arkaan alislaam ana waad imaatay sidee noqonaysaayo bal ka waran baan ku yidhi xaggay wax kuu marhayaan seed u dawaaftay oo seed u tukatay oo bal hadda warka keen baan ku yidhi
qosol buu u dhacay qosol buu u dhacay wuxuu yidhi maalinkaan imaaday yaan ogaaday buu yidhi in laga saxsan yahay lianna ruknigan dhan wuuba cadilmaayaa buu yidhi haddii hadda annaga meeshaan ku tagnay la raaco oo la yidhaahdo ha lagu dabaqo masjid alxaraam rukniga dhanba wuuba cadilmaayaa buu saa darteed waxaa weeye in laga garhayay baan ogaaday buu markiiba wuxuu yidhi waan ka noqday waan ka toobadkeen ma ujeedaa masjid alxaraam marka waa lagu maraya korkaagaa laga boodi madaxaa lagaaga fadhiisan meel aad u dhaqaa si aad dhihi kartana ma jirto maba hadli kartid falaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaji soo ma xaj mabruura waxaa la rabaa inaad carabkaaga ilaashato afcaashii ilaahay ku muxuu ahaa lagu yidhi sameena aad samayso soo maha haddaad tidhahda waan dagaalamina waxaad meesha u imaatay oo dhan baad ajarkiisii meesha ka saaraysaa haddaynan uumana kaa burinin marka waxaa weeye waa inaad isdhiibto walaa yajuusu ma banaano almuruur in la maro bayna yaday lmusalli qofka tukanayo hortiisa idaa kaana bayna yaday hadday tahay sutra haddaad sutra dhigatay haddaadan sutra dhiganin sidee dadki isaga celin horta dadkiina gacmaha taagtaagayo meelahan wada joogo o dhanow sutraba midna dhiganine yaa xaq idiin siiyey dadka inaad iska celisaan markaad iska celini qofka waa markaad sutro dhigato haddaadan sutro dhiganin sideed qofka isaga celin ninaan saaxiibnahay baa igu hortukaya maalin dhaweed nin buu meesha ku sunnaystay oo fadhiyey buu sutro ka dhigtay oo muuna sheegin oo sutraan kaa dhigtay ii fadhi ma dhihin kolkuu salaadii galu iska baxay wadaadkii dadkii meesha marahayay markay soo maraanba gacantu kula dhuftaa kolkuu salaadii ka baxay baan ku yidhi yaa xaq kuu siiyey dadka inaad iska celiso sutrada maa dhiganine ninkii meesha fadhiyaan ka dhigtu yidhi hadda wuu iska tegey soo ma jeedid qofkii iskaba tegi haddaan sutraba samaysanin sideed wax isaga celin ood gacmaha u taagtaagi midda kale sutrada waxaa la yidhi ha loo dhowaado halkaa qof iska maraya oo meeshaad ku sujuudaysa iyo mamarishaadba bannaankeedaasa yuu maanta dhan gacanta sidaa u leeyahay soo ma khatarteeday leedahay ha laga xidaaraysto nusuusta ha lagu taqayudo nusuusta aan ku ekaano yeenan dhaafin walaa farqi ma kala dhaaf fi dalika bayna almasjid alxaraam wagayrihi min almasaajid dhammaan masaajidda sutra la rabaa fakulluhaa sawaaءun fi cadami jawaaz waxaa weeyaan bannaanaansho la-aanteeda qofku inuu maro ama sutro la samaysto kulligeed way wada gaaraysaa licumuumi qowlihi sala allahu calayhi wasalam low yaclamu almaaru hadduu ogaan lahaa qofka maraya bayna yaday lmusalli qofka tukanaya hortiisa isagiyo sutradiisa horteeda kala maraya maadaa calayhi waxa dushiisa lakaana waxaa uga roonaa an yaqifa inuu joogsado 40 yaa khayran uga khayr badan lahu asaga min an yamura inuu maro bayna yadayhi sutradiisa horteeda inuu maro yacni almuruura bayna yaday mawdica sujuudihi hadda wuuba ka bixiya sheekhu sutraba maadan dhiganin kii ku marayay marka meeshaad ku sujuudaysay iyo adiga inta idiin dhaxaysay marideeda wey hadduu meeshaad ku sujuudaysay bannaankeedaa maray inaan la celinaynin bay daliilu inagana arrintaa waa iska warhaynaa soo ma yacni wuxuu u jeedaa almuruura inuu maro bayna yaday hortiisa wa bayna mawdici sujuudihi sujuuddiisa meeshii uu ku sujuudahayay waxaa weeye intii ka sokaysay ayaa loo diidan yahay bannaankeedaa inuu qofku iska maro looma diidano wujuub manci lmusalli lilmaari bayna yadayhi inaad iska celiso qofka hortaada maraya kolkaad sutro dhigata wey walow fi lmasjid alxaraam masjidka xaraamkana noqdee hadda ka hor qaybtaa dambe annagoo ku tukanayna oo sheekh maxamed baana tujinayay yaa safkii oo salaadii lagu jiro iyo nin la yidhahdo sheekh cabdiraxmaan baa damcayna hortanada maro wadaad baa diiday inuu maro salaadiina waan ku jiraa waa salaad waajiba ogow wuu iska celiyey wadaadkii wuu la yaabay haddee waad og tihiin masaajidkan iyo dadka soo maha salaadii waxaa laga baxay isagoo dadun iska celinhaya salaaddii markii laga baxay baan qabtay waxaan ku idhi war imaamkaa sutro kuu ahe
adiga oo musalli ah oo muqtadi ah imaamkaa sutra ku dadkan meesha maraya maxaad u celinaysaa tuka salaadii hadda way ku dhaaftay yaa tahay buu yidhi adigu horta war hadda masaladan kuu sheegayaa masaladaa sidaa wuxuu yidhi ana laa aqbalu ma taqulu lii in lam takun sheekh umal warkaaga maba yeelaayuu yidhi haddaadan sheekh umal ahayn sheekh umal basa iige haddaad rabto inaan warkaaga yeelo waan soo kaxeeyey sheekhaan u keenay waa ra-islii hadda wuu inala joogaa soo ma jeedaan marka dad badan bay ka khaldamaysaa oo maaragtay hadda nafteeda xalay wadaad inala tukanay wuu istilmaamay salaaddii oo taraawiixdii oo lagu jiro yuu wadaad hortanada marahayay isdifaacun baa ku guntanaa ma og tahay wuu istilmaamay oo wadaad hortanada marahayo dhag gacanta ka siiyey wuu istilmaamay marka waxaa la rabaa in la soo reebtaa la rabaa walaa yajuusu sooma qumani walaa yajuusu uma banaana lilmusalli qofka tukanaya ilaa sutratin sutra u tukanaya xaggeeda tan oo kaleeto an yadaca inuu ka tago axadan yamuru bayna yaday hortiisa maraya lilxadiidi saabiq walaa tadac axadan ha ka tegin aan soo dhaafnay yamuru bayna yadayka adiga sutradaada wa qowlihi sala allahu calayhi wasalam waxaan maraynaa hadda baabkii 25aad dib markaad u fiirisaan risaaladaa yar ee mukhtasarka ah inta jeer ee nabiyullaahi maxamed ku soo sallinay calayhi salaatu wasalaam intay dhan tahay soo carraka waa maaha barakadu marka halkaasay ku jirtaa meel lafti aad qaadda iyo eraygii kaa soo baxaba aad ku sallinaysa nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam soo inay meel barakaysan tahay ma aragtaan marka way barakaysan tahay لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى هدوتك أحدكم إلى شيء وح أتكد يستتره ويسكو قرنا من الناس دتك وفأراد أدون أحد قف أن يجتاز إنو مرو بين يديه هرتيسة فليدفع إسكريبو في نحره دو صاحي سكعليو وليدر هم جيرو ما استطاع إسكعليو ما استطاع أنتو أودو وفي رواية فليمنعه هري إسكعليو مرتين فإن أبا هدو ديدو فليقاتله هلا دقالمو وإنما هو شيطان حديث كان نين شيخ أباب مالين مساجد كشيخ مساجد دينا كمدة هذا صومالينا ويسير جروبيي وكلا كيبسنتا يسد دعاية ليسا حديث كان مركو شيخي لمبا استاغي آير بود dhabarka tirtirtay meeshii uu ka kacay buu tirtirtay geeskaasoo kaleu istaagay wuxuu yidhi hadda ma intaad ka soo badbadiseen wax walbabaad masaajidiina dadka ku laayana leedihiin buu yidhi soo ma jeedid ma masaajidiina dadka ku laaya baadna leedihiin buu yidhi hadda oo hadda rabtaan inaad nagu tirahdaan maya sheekh waxaa la yidhi qof waxaa laga hadlayaa masale khaasa qofka qudhaha laga gooyo ma aha waa ha la iska celiyo qofka markaas udura dhigata hortaada marahaya iska celi weeye dil oo qudha ka jar ma aha la yidhi qudh ka jartiibu wuxuu u maleeyey falyuqaatilubu wuxuu u maleeyey ha la dilu u maleeyey soomaalina maxay ku mahmaadaa si xun wax uu fahme mise si xun wax uu sheege say ahayd mahmaada sixir ka daran hadalka oo si xun aad u qabsato meeshiisii meel aan ahayn aad adiga u fahanto haadaan iyo sharaaqowti buu kaa tuurahaya waa dhib badan yahay almashyu ila alamaami limanci almuruur salaad baad gashay sutraad dhigatay adiga sutradaadii ilmaa soo orday neef adhiyaa soo orday maxaad samayni waa ilmo yar oo dhulka jooga waa waxar waa nayl yar oo soo ordeen salaadaadiina waatan maxaad samayn adigaana imaamahoo dadkii tusinaya waxaad samayn lahayd baa lagaa rabaa waatan wayajuusu waxaa bannaan an yataqadama inuu horay maro khudwatan oo akthar ama hal tallaabo ama ka badan inuu horay u durko liyamnaca inuu diido celiyo gayra mukallafin qof aan mukallaf ahayn oon qaangaadh ahayn qayrkii min almuruuri inuu maro bayna yadahi hortiisa waad ku ordi sutradii xaggeedii baad aadi si uu gadaalkaaga maro ka daabatin
وحرتي يا نيشي أن شيء نوكله أو طفل أما علم أوكله حتى يمر من ورائه قداشي سينتو كمرو وحرتنا وحال يرادا ريها علمها يدلان دل يرادا اسبتال هذا محوها المجال بكبح وريقود نايلنا وحال يرادا إذا علمها يدلان يربى يرادا نايل يا وحرب على كلا يرادا سيدا أوفا بمركة إذن كنفتي إنه وحكة لينوقي أو قادنينا ما يقطع الصلاة قفكم وقتها هذيك في صومالي نفتي سوالوك لدوين ياهي قف على جيابا في صومالي قد شكتي بإنونا وح وكفه ما يبتشرين أنا قاعد إذا الله ذي وحنو تاجنا مساجد بوحالة قليل تفسير كشيخ عمر فاروق رحمة الله عليه سورة القاف وآخرين يجي وتفسيرين يجي صلاة عشاء مركي لقى بحي بين العشاءين بيهيد وبنانك وصوبحي صلاة إلى صوبحي وأنا أركويل مركزة وحنقولي شيخ وحو شيخ هيجي وحما كفه هنتي dhalinyarada magaalooyinka ku korayaan luuqadii Soomaaliga aad u garanaynin buu ahaa markaas wuxuu iigu jawaabay kulay buuq waa maqlooyi darsigii dhanaa kitaabkii dhanaa suuradii dhanayda qaafayda sheekhu soo tafsiiriyay asaga waxay u taagan tahay buuq bay u taagan tahay kulay ani buuq waa maqlooyi marka in wax la isfahansiiyo waa daruuri ma yaqta'u salah salaadaadii maxaa kaa goynaya adiga sutradaadii taymka haddii la gaaray hala ii sheego cabdirashiid show maanta ma joogo waa la dhaafay baan ka baqayaa xilligii waa la dhaafay soo ma haya halkaa haynoo joogo maanta ما يقطع الصلاة إنه جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم